dadka qaar si kala laga inuu fahmaan wuxuu ku leeyahay kitaabka quraanka wax kasta uu ku yaala waxa kale ee la sii raadin muxuu yahay ilaahay soo madhin ma faradna fil kitaabi min shay wa sax ma faradna fil kitaabi min shay laakiin waxa ogaataa isla kitaabka sidaas ah waxyaabo uu sheegina jirta ee way sal isu waafajin aayadan iyo waxa ku jira wuxuuna kitaabku sheegin inuuna wax kitaabku uu sheegin ay jiraan waxa kugu daliil meel kale kama keenayno nabiga sallallahu alayhi wasallam muaad ibn jabal yuu yaman u diray markaas wuxuu ku yiri maxaad ku xukumaysaa dadka markaas wuxuu yiri fa bi kitaabillahi kitaabki ilaahay baan ku xukumaaya markaas waxa lagu yiri fa in lam tajid hadaadan ka helin ka waran soo wax laga waayay kara ma rasuulka wuxuu leeyahay muaadow hadaad arintan aad sheegayso fa in lam tajid kitaabka hadaad ka weydo wuxuu yiri fa bi sunnati rasuulillah rasuulka sunnadiisa hadana ka raadinaya markaas hadana waxa lagu yiri fa in lam tajid sunnadina waad ka weyday marka fiir waxa jira wax laga weynaayo kitaabkii laga weynaayo oo sunnadii laga weynaayo see la yeelaa marka oo hadaan yeelay bal tusaale ahaan keen inaga Soomaaliyeed dhaha haye qofka madaxweynaha inoo noqonaya inta sano ee uu madaxweynenimadka loo imanaayo ee uu madaxweyne ahaanayo waa meeqa sano waa 5 sano bal aayad quraana ka soo saar jamhuuriyadda Soomaal ra'iisuha muddatu 5 sanawaat aayad kuma jirto xadiisna kuma jiro maxaa la sameeyay marka waxa la sameeynayaa muxuu yiri muaad ibn jabal fa in lam tajid kadib muxuu yiri ajtahidu wala aalu wuxuu yiri waan dadaalaya mana ka gaabinaa inaan dadaalo oo wax umada anfacaaya oo kitaabkii iyo sunnadiina aan khilaafsanayn inaan keeno marka waa la keeni karaa yaani waxa la fiirinayaa kitaabkii iyo sunnadii ma khilaafsan yahay ayaa la fiirinayaa aayadan ma farna fil kitaab min shay mufassiriinta qaar waxay ku fasireen si una isaga hor imaanin diintu isaga hor imaanin waxay dhan waa looxul mahfuudka wax la sheegayo ma farna fil kitaab min shay inta la sheegayaba waa looxul mahfuudka wax kasta ku yaalaan laakiin kitaabkan quraanka wax badan oo ku olin ayaa jirta midaa wuxuu u fahmay ogtahay in wax walba laga helayo la isku mar dhibo ogtahay wax aan yaani aadan helaynin mid ingiriisi waxa la mid oo saas oo aaminsan ma farna fil kitaab min shay waxba loogama tagin dhahay ya is arkeen xuna kitaabkeen wax ka soo sheega markaas uu kitaabkiina wax ka soo sheega ha magacayga ka soo saarba kitaabkiina markaas uu magaca adiga wuxuu yiri cook ayaa la dhahaa wa tarakuuka la bishoogaysaa wa tarakuuka cook ma sheegaysaa